inkastoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xalay aad ugu faanay inuu Soomaaliya ka gudbiyay marxalad uuna dhisay urur siyaasadeed oo ay xubno ka yihiin madaxda maamulada mudadaafka ee safkiisa ku jira iyo xubnaha dawladda haddana jawaab celinta ka timid siyaasiyiinta ayaa noqotay mid si weyn saameyn u yeelan doonta isla markaana taabanaysa marxaladda aan degganayn ee Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo ammaanka tabintan waxaynu ku eegaynaa jawaabta mucaaradku oo afar qaybood ah waxa xigi kara isku jawaabidda madaxdii xalay isbaraysay maxay ka dhigan tahay ururkan cusub sheeyaha gacanta ma loo gelin doonaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynimadii ma ka tanaasulay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkiisii saddexaad ee muddada xilhaynta ku soo gabagabeeyay xalay inuu noqday hogaamiyaha urur siyaasadeed doorashada uu isku diyaarinayo aan heshiis lagu ahayn waxaana la tirtiray oo meesha laga saaray golihii madasha wada tashiga qaran madaxda maamulada safka fiilada ku jira ayaa noqday xubno ka tirsan ururka madaxweynaha taasoo nuxur ahaan ka dhigan in hadda kadib ay siyaasaddu noqotay laba garab oo ay madaxda maamulada iyo madaxweyne Xasan Sheekh isaga tageen mas'uuliyaddii weyneed oo ay ka doorbidaan inay urur hoggaan iyo xubno ka noqdaan sida ay qabaan dhinacyo kala duwan oo falanqeeyay go'aankii xalay in madashii qaran madaxweynuhu ka tago oo uu ka doorbido inuu urur u noqdo madax dad badan ayaa sheegay inay ka dhigan tahay in madaxweynuhu geedka weyn ka doorbiday Kanyar taasoo macna ahaan koobaysa in Soomaaliya ay jid kala aadaya mucaaradku afar kooxood isku qaybiyay afar jawaabood ayay la kulantay tallaabadii madaxweynaha dawladda federaaliga iyo ku dhawaaqidiisa urur siyaasadeedka dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ayaana markii koobaad taariikhda noqday afar qaybood oo siyaabo kala duwan uga falceliyay tallaabada fiila Soomaaliya tani waxay abuurtay in afarta dhinacba ay geesahooda ka soo gali doonaan marka wada hadal iyo isku imaateen ay qasabtaan in la aado waxayna u kala qaybsan yihiin Puntland oo mowqifkeedu cad yahay bannaanka taagan doonaysa in wax kasta dib loogu laabto kuna sifaysay habdhaqanka fiila Soomaaliya iyo ururka cusub Soomaaliya u horseedaya marxaladda dib u noqosho iyo jahawareer cusub madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaana ku dhawaaqay in dadcunimo ay fiila Soomaaliya hadda xaaladeedu joogto oo ay ka sii dartay sida ay horey u ahayd koox siyaasiyiin oo ay ku jiraan ra'iisul hore uuna hogaaminayo madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ayaa nuqul cad iyana gaarkooda u soo saaray waxayna sheegeen in Soomaaliya ku jirta xaalad degdeg ah oo indhahan laga qarsan karin ayna tahay in dawladda laga badbaadiyo gabi ahaanba hanaanka dawladnimo ee ay qaaday waxayna ku dhaliileen madaxweyne Xasan Sheekh inuu ka gaabsaday gabi ahaanba inuu aqbalo talooyin kala duwan ee loo soo jeediyay beddelkeedana uu qaatay go'aanka in gabi ahaanba uu koox ku koobo hanaanka wada tashiga qaran isla markaana Soomaaliya ay xaalad halis ku jirto madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku adkaystay mowqifkiisii hore waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay dib ugu laabatay oo ay tahay in madaxweynuhu uu ku soo laabto miiska wada hadalka danta dalkana laga hormariyo danaha shakhsiga ay madaxda dawladda federaaliga ee Soomaaliya ku foogan yihiin burburinta dawlad goboleedyada iyo tallaabo kasta oo uu sheegay in sharci darrada ay Farmaajo ka digay Jubbaland iyana gaarkeeda ayay u taagan tahay hadda inkastoo dawladdan lagu yahay waxay tilmaantay in xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed oo xukumayay gabi ahaanba Soomaaliya uu shaqayn waayay aragtida iyo damaca fiila Soomaaliya ayayna ku sifaysay inay waxba ku soo kordhineen xalka cakiran ee Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa saacado ka hor sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in dhab loo wada hadlo dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayuuna ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh inay ka shaqaynayaan gabi ahaanba hanaankeeda socod oo uusan garanaynin waxaana madaxweynaha u soo jeediyay inuu isdhagaysto afartan qaybood ee mucaaradka oo dhinaca iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ururkiisa isku raranka matalaya ayaa wada hadli doona marka dhabta loo dago taasoo macna ahaan ka dhigan in laba dhinac oo kala saami qaybsiya ay talada isugu imaan doonaan madaxda maamulada safka fiila Soomaaliya galay oo xalay isqibleeyay ku xidhnow dunida casriga ah oo isticmaal Sombank Mastercard uga adeego si khidmad la'aan suuqyada caalamka iyo online-kaba ku raaxayso adeeg degdeg ah ammaan ah oo aan xal lahayn maanta badalbo oo maanta qaado xalay madaxweynaha oo kaliya urur hoggaan kama noqonay waxayna meesha ka baxay oo wilaayadoodii siyaasadeed saartay fiila Soomaaliya madaxda maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Khaatumo taasoo ka dhigan inay hadda kadib wada hadli doonaan shan qaybood oo siman oo afar mucaarad ku tahay aragtida fiila Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo matalaya dhinacyada la dhisay ururkii xalay dadka siyaasadda falanqeynaya ayaana ku sifaynaya
in madaxweynayaasha maamuladu ay ku dhaceen ilduuf siyaasadeed oo ay adag tahay inay si fudud uga soo kabtaan maxaa xigi kara isku jawaabidda dhinacyada kadib sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo kala duwan wakiilada caalamiga ayaa saacado ka hor intuusan madaxweyne xasan sheekh tegin hoolkii xalay ay u sheegeen inuu ka joogsado dhabbaha uu qaadanayo una laabto waaqaca oo aqbalo inuu wadahadal ka galo arrimaha munugsan ee dastuurka doorashada amniga iyo siyaasad loo dhan yahay balse jawaabta madaxweynaha ayaa noqotay inuu noqday guddoomiyaha ururka cadaaladda iyo wadajirka maalmo ka hor sidaan hore u sheegnay wakiilada caalamiga gaar ahaanna waddamada Yurub Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ku kala qaybsamay hannaanka loo wajahayo in fiila Soomaaliya xindaabka lagu soo celiyo waxayna qaateen Mareykanka iyo Ingiriisku inay toos uga hadlaan London iyo Washington laakiin Yurub ayaa raajicinaysa in madaxweyne xasan sheekh aqbalo warkooda oo dhageysto hayeeshee tallaabadii xalay ee madaxda dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada koonfurta ayaa macnahaan muujisay in fiila Soomaaliya ay fogaatay oo ka gudubtay xindaab kasta oo ay hore ugu wada hadleen dhinaca midowga Yurubba saacadihii la soo dhaafay wada hadallo ay dhinacyadu yeesheen waxaa lagu gurfeeyay inay waajib tahay in madaxda dawladda federaalka lagula hadlo luuqad adag oo ay fahmi karaan soddon maalin gudaheed ayaana qorshaysan in mar kale wakiilada caalamiga ee loo yaqaano C6+ku ay la yimaadaan handadaad cad oo Soomaaliya hoggaankeeda fadeexad iyo ceeb ku noqon karta ma suuragalba in dhexdhexaadin shisheeye uun la isugu yimaado inta badan sida laga arkay marka ay xaaladda Soomaalidu gaarto aag halisa dhinacyaduna isku qancin waayaan talada iskuna raaci waayaan go'aan dhammaystiran oo ay iimaan waayaan wada hadallada cadaadiska iyo hanjabaadaha caalamiga ayaa ku khasba inay dhabta u soo laabtaan iyadoo madaxweyne xasan sheekh dhammaan hogaamiyaashii kaga horreeyay xukunka uga duwan yahay in fariimaha Mareykanku ay ku bilowdeen isagoo ay u bilaabanayso sanadkii ugu dambeeyay ee muddada xilhayntiisa oo caawa uu galayo sanadkii afraad taasoo macna ahaan ka dhigan in faragelin shisheeye aan la huri doonin dhinacyo kala duwan oo ay la hadashay Geelan Media ayaa isku raacsan in qodobka xiga iyo hanjabaadaha caalamiga iyo isdiidinta waaqaca ee hogaaminta Soomaalida ay noqonayso jid horeba loo soo arkay waa in dibadda lagu heshiiyo iyadoo dhammaan dhinacyadu ay siman yihiin aqbalaana inay dhexdhexaadiyaan shisheeyaha Soomaaliya ku bixiya dhaqaalaha dhinacyada horumarinta amniga oo ay wehelsa xataa mushaaraadka madaxda iyo maamulada koonfurta ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya Muqdisho oo la isugu tagayo madaxda mucaaradka qaarkood oo bilihii la soo dhaafay ku kala maqnaa goobo kala duwan ayaa qorsheynaya inay hadda dib ugu laabtaan Muqdisho qabtaan shirar ay uga hadlayaan xaalka dalka oo ay uga hortagayaan in fiilada Soomaaliya rabitaankeeda oo kaliya u shaqeeyo taasoo ay afarta kooxood ee mucaaradkuba isku raacsan yihiin inay hore Soomaaliya uga hirgeli weyday haddana aysan suuragalba ka ahayn in tallaabo hal dhinac oo kaliya u wato oo ka hirgalo waaqaca siyaasadeed ee Soomaaliya ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh ayaa luminaya waqti dheeraad ah dhaqaale iyo waliba sidoo kale dhinacyo kala duwan oo saaxiibo siyaasadeed oo hadda leeyahay waxayna ka dhignaan doontaa in ugu dambeynta madaxweynuhu ku soo dhammaan doono aqbalka warka wakiilada caalamiga isla markaana uu la fariisan doono dhammaan dhinacyada uu hadda isdiidsiinayo haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PayC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zaad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PayC